walaashay waad nuuraysaaye sirtu waa maxay walaashay ilaahayaa sidaan iga dhigay waxaa mahad iskale allihiina abuurtay haa ka waranba wiilkaagii oojo bangiga ayuu aaday wax yar kadib ayuu imaan doonaa haa aye wuu bimaaday fiid wanaagsan hooyo fiid wanaagsan xaggan imow salaan habaryartaada habaryar bimbo fiid wanaagsan habaryar fiid wanaagsan oojo sidee tahay waa fiicanahay habaryar nin weyn ayuu noqday ma xasuusataa iyada maya hooyo ma xasuusan karo ma xasuusan kartid habaryar bimbo maya hooyo ma xasuusto oojo ma i xasuusatid wax aqli galaya ma ahan ani waan wareeray sidaan miyuu iskuulkana ku yahay walaashay inay midaas tahay ayaa laga yaabaa haa waxaa laga yaabaa inay midaas tahay siyeeri inuu qabaa laga yaabaa haye oojo ma i xasuusatid ma xasuusan kartid miya habaryar bimbo qofkii ku xanaanayn jiray markii aad 2 bilood jirtay mar walba aniga ayaa gacmaha kugu hayn jiray adigoo ooynaya ku day inaad soo xasuusato maskaxdaada isticmaal oo dib u xasuuso meeshaan ha igu ceebaynin fiirihe waa kan ha u qaban hadda ayaan xasuustay haa hadda ayaan soo xasuustay waxaan xasuustaa sidaad ii nuujin jirtay allah habaryar nuujintaadii aad ayay u macaaneed cunugayga maad nuujisay aniga wiilkaaga ma oga waxa uu ku hadlayo ma ii nuujin miya bimbo waxaan ku dhahay cunugayga maad nuujisay walaashay aniga cunugaaga ma nuujinin ayee oojo yaa ku nuujiyey hooyo waxaa laga yaabaa inay ahayd habaryarta kale bimbo iga bax gurigaaga miyaad iga burinaysaa waxaan ku dhahay guriga iga bax sideed ku awooday inaad cunugayga si sir ah ku nuujiso hooyo ma ahan inaad burisid laga yaaba in aysan iyada ahayn qof aan aniga ahayn sidee ayuu ku awooday inaan aniga ku nuujiyo ma ogiye waxaa laga yaabaa inay tahay sababta uu dib u dhac ugu imaaday hooyo maxay hooyo sidee iga filinaysaa inaan soo xasuusto qof markii aan 2 bil jiray waan kaftamaya marka aan lahaa way i nuujisay ilaahow adaa mahad iskale oojo waxaan oo kale mar damba ku kaftamin hooyada oo waalan hooyo ma xasuusan karo wixii dhacay markii 2 bil jiray sidaas darteed ma xasuusan karo iyada waa runtiis walaashay keliya wuxuu jiray 2 bil maskax uu ku soo xasuusto ma lahan iga raal noqo walaashay waan kaftamayey waa caadi walaashay waan ku fahmi karaa ka waran markii ay dhashay ma xasuusataa waan huwa midaan wuu soo xasuusan doonaa isagaba doqon ma ahan dabcan haye goorme ahayd taas waxay noqon kartaa markii aad jirtay 3 ilaa 4 hooyo habaryar You know you can be prosecuted for that. meeshaan iskaga tag